waxayna ugu abaalgudeen inay ka doortaan xaasaskoodii noloshiisana dhaafsiiyaan. waa qiso aad u xanuun badan oo dhex martay 3 wiil iyo aabahood oo waayeel ah. nin ayaa wuxuu dhalay 3 wiil, wuxuuna ahaa inuu mar waliba ka fikirayo noloshooda iyo mustaqbalkooda. wuxuuna had iyo jeer ku dadaali jiray sidii ay ku gaari lahaayeen horumar wanaagsan iyo isku filnaansho. markii ay soo weynaadeen ayuu wuxuu jeclaystay inuu 3dooda u guuriyo gurigiisana ay la degaan, oo markaa ah guri aad u weyn oo qurux badan, si ay u wada noolaadaan isagana garab ugu noqdaan. ninkani ayaa wuxuu qabi jiray cudurka suuxdinta, waxaana dhici jirtay inuu mararka qaar uu miir daboolmo isla markaana waqti dheer kooma ku jiro. 3dii xaas oo ay wiilashiisu qabeen ayaa waxay dhibsadeen ninkan xanuunsan oo sodog u ah, waxayna ku fikireen sidii ay guriga uga saari lahaayeen. waxay u yeereen nimankoodii oo ay ku yiraahdeen, waa in aad naga saartaan odaygan oo aad geysaan meelaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah, maxaa yeele waxaan dhibsanay araggiisa. 3dii wiil ayaa waxay ku qanceen hadalkii ay u soo jeedeen xaasaskoodii. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa qabatay aabihii jiradii qaban jirtay, wuxuuna galay koomo. 3dii xaas ayaa aad u farxay markii uu aabihii galay koomada, waxayna u yeereen nimankoodii oo ay ku yiraahdeen, qaada inta uu koomada ku jiro waxaadna geysaan halka dadka waayeelka lagu xanaaneeyo, dib dambana ha u soo celinina. 3dii wiil ayaa waxa ay soo qaadeen aabahood, waxayna keeneen meesha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. hase yeeshee waxa ay u sheegeen dadka meesha mas-uulka ah in ninkani ay ka soo qaadeen waddada isaga oo miir daboolmay, ayna doonayaan inay ajar ku raadsadaan maadaama uusan lahayn wax dad ah. nimankii meesha ka shaqaynayay ayaa ninkii la wareegay maadaama uusan lahayn qof ka mas-uul ah ama sheeganayso. 3dii wiil markii ay soo baxeen ayay ninkii albaabka ilaalinaya ku yiraahdeen, haddii uu ninkani dhinto waxaad naga soo wacdaa lambarkan si aan u ogaano dhimashadiisa. ninkii ayaa wuxuu ka soo baxay koomadii, waxaana u soo noqday miirkiisi. kadib wuxuu u naadiyey wiilashiisii si ay ugu keenaan biyo uu ku weyse qaato. waxaa u yimid ninkii meesha mas-uul ka ah iyo kalkaalayaashii, waxayna ku yiraahdeen, waxaad joogtaa meesha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo. aabihii ayaa aad u dhaxay, wuxuuna su'aalay dhakhaatiirtii uu ku yidhi, goorbeen imid halkan oo la i keenay. waxay ku yiraahdeen, dhowr maalin ka hor ayaa halkan lagu keenay. waxayna u sheegeen in ay keeneen 3 wiil, waxayna u tilmaameen sida ay u ekaayeen. aabihii ayaa wuxuu ogaaday in ay yihiin wax sidan u galay wiilashiisa, aad ayuuna u murugooday. wuxuuna yidhi, wiilashiidii miyaa sidaan ii galay? markaasuu ooyey, gacmaha ayuuna kor u taagay isagoona alla barya. wuxuuna yidhi, allow xumaanta ay igu sameeyeen iga aargud, waxaadna gelisaa naartaada, adduunyada korkeedana ku tusi ciqaab ka hor inta aysan qiyaamaha gaarin. kadib aabihii wuxuu go'aansaday inuu hantidan ku wareejiyo dadka masaakiinta ah. wuxuuna u yeeray ninka meesha mas-uulka ah, wuxuuna u saxiixay in gurigiisa uu maanta wixii ka bilowda ku wareejiyey dadka waayeelka ee aan qof lahayn. wuxuu mar kale aabihii ku fikiray sidii ay ugu abaalmariyeen wiilashiisii oo markii ay yaraayeen kusoo dhibtooday. markii uu u adkaysan waayey ayuu qayliyey, kadibna waa uu dhintay. wiilashii 3da ah aad ayay u farxeen markii uu u soo sheegay ninkii waardiye ahaa inuu aabahood geeriyooday, waxayna siiyeen ninkii lacag fara badan maadaama uu u soo sheegay dhimashada aabahood. wayna baxeen si ay ula wareegaan hantidii aabahood, balse nasiib daro waxaa u yimid ciidamo. waxaana loo sheegay in gurigani ay doonayaan inay kala qaybsadaan uu aabahood ku wareejiyey dadka waayeelada ah oo aan dadka lahayn, waxaana weliba lagu wargeliyey inay si degdega uga baxaan guriga. tani waa abaalmarkoodii adduunyada inta aan la gaarin qiyaamaha. ruux weliba oo ku fikirayo inuu qof la gooyo, sidaa ayaa abaalmarkiisu noqon doonaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskraib si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. mahadsanid.